Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararka caalamka oo aad si toos ah kala socotaan shacabka media xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. Waxaana warka idiin sheegaya anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku dhawaaqday tallaabada kaga aadan dagaalka ay shacabka kula jiraan Al-Shabaab. Puntland oo digniin culus u dirtay hay-adaha ajaanibta ah ee shaqaalaha dibadda kala yimaada. Axmed Daaci oo si adag uga hadlay go'aanka isku biirinta NISA iyo ciidanka booliiska. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo shaaciyay sababta ku qasbaysa xal u raadinta dalka Soomaaliya. Madaafiic xalay lagu weeraray saldhig ay Al-Shabaab ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. Dadaalo la doonayo in mar kale dib la isugu soo celiyo madaxda Galmudug oo socda, iyo Sacuudiga oo dhaqaalaha ka jaray dadka Qudus ku nool kadib markii ay diideen qorshaha loogu wareejinayo Yahuuda. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa su'aasheena maanta, anagoona dib u eegi doonaa su'aashii shalay aan idiin soo gudbinay. Warkii oo fidsan. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday tallaabada kaga aadan dagaalka ay shacabka kula jiraan Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dagaalka u dhexeeya dadka shacabka ah iyo Al-Shabaab ee maalmahan ka socday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Indhaqarshe ayaa sheegay in ay la socdaan dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay, waxaana uu tilmaamay inay qaadayaan tallaabo lagu taageerayo shacabka dagaalka kula jira Al-Shabaab. Waxa uu Indhaqarshe intaasi ku sii daray in taliska ciidanka xoogga dalka uu qabo dareen ku aadan colaadda shacabkaasi kala dhexaysa Al-Shabaab, waxaana uu ku dhawaaqay inay garab siinayaan dadka shacabka ah ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Indhaqarshe waxa uu intaasi ku sii daray in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka faa'iideysanayso kacdoonka shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ay diyaar u yihiin in ay ku gacan siiyaan dagaalka ay kula jiraan Shabaab. Waxa uu carabaabay in dhankooda ay ka go'an tahay in sanadkan iyo kan soo socda gudihiisa ay Al-Shabaab ka saaraan guud ahaanba dalka, sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, Generaal Indhaqarshe ayaa waxa uu ka hadlay howlgallada ka soconaya qaybo ka mid ah bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, kaasi oo qorshihiisu uu yahay sida lagu furi lahaa wadooyinka isku xira magaalooyin waaweyn oo muhiim u ah dowladda iyo dowlad goboleedyada. Hase ahaatee, waxa uu ka gaabsaday howlgalladaasi iyo xilliga sida rasmiga ah loo soo afjari doono. Maamulka Puntland ayaa waxaa digniin culus uu u diray hay-adaha ajaanibta ah ee shaqaalaha kala yimaada dhanka iyo dibadda. Hogaamiye ku-xigeenka maamulka Puntland Cabdixakiin Cumar Cami ayaa markii ugu horeysay ku amray hay-adaha ka howlgala gudaha Puntland inay joojiyaan shaqaalaha ajnabiga ah ee ay kala imaanayaan dhanka iyo dibadda. Cabdixakiin Cumar Cami ayaa sheegay inay qalad tahay in muwaadin shaqo la'aan ah dalka dibaddiisa laga keeno shaqaale kale oo ajaanib ah, waxaana uu ka digay in dalka la soo geliyo ajaanib shaqo doon ah. Cami waxa uu tilmaamay inay xad dhaaf yihiin ajaanibta u soo shaqo doonanaya Puntland, waxaana uu hay-adahaasi ku amray inay hakiyaan shaqaalaysiinta ajaanibta. Waxa uu sheegay in kororka shaqaalaha ajaanibta ay xiriir weyn la leedahay shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee Puntland ku nool. Waxaa Cami dhanka kale uu shaaca ka qaaday in shaqo la'aantu sabab u tahay amni xumada iyo in Daacish iyo Al-Shabaab fursad u helaan inay dhalinyarada kusoo xerogeliyaan lacago aan badnayn oo loogu adeegsanayo in dalkooda ay ka dhigaan meel amni darro ah. Sidoo kale, hogaamiye Cami ayaa carabka ku adkeeyay in shaqo la'aanta baahsan ay xilligan ka jirto deegaanada maamulka Puntland iyo qaar ka mid ah gobollada dalka. Dhinaca kale, waxa uu ku celceliyay in hay-addii jabisa amarka maamulka ay ka saari doonaan dalka oo dhan, waxaana uu ku baaqay in la joojiyo shaqaalaha ajaanibta ah ee dibadda laga keenayo. Axmed Daaci oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa waxa uu si adag uga hadlay go'aankii dhowaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay isugu biirisay ciidamada NISA iyo kuwa booliiska. Dhaliilo kala duwan oo dhanka amniga ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan isku biirinta ciidamada labisan ee hay-adda NISA iyo kuwa booliiska Soomaaliya. Dadka qaar ayaa dowladda Soomaaliya ku dhaliilay inay ku fududaatay isku darka labada ciidan oo kala quwad badnaa, iyadoo isku darkooda lagu sheegay mid wiiqay amniga Muqdisho.
Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci oo mar soo noqday gudoomiye degmo ayaa ka mid ah dadka sida aadka ah u dhaliilay isku darka ciidanka booliiska iyo kuwa nisa. Axmed Daaci waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid lagu fududaaday, isagoo soo jeediyey in dowladda Soomaaliya ay samayso ciidamo u dhigmi kara kuwa la burburiyey. Axmed Daaci oo waraysi siiyey mid ka mid ah idaacadaha Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho ay sabab u tahay burburinta ciidanka nisa ee lagu daray booliiska, waxaana uu caddeeyey in amni darrada jirta ay gaartay meeshii ugu sarreysay. Waxa uu xusay in koox bistoolad wadata ay dilal ka geysanayso gudaha magaalada Muqdisho, taasina ay tahay mid aad looga xumaado maadaama ciidamada aadka looga baqi jiray ay ahaayeen kuwa nisa. Waan dareemi karnaa hawsha ay ciidamada nisa ee lagu daray booliiska u hayeen Muqdisho. Nisa iyo booliis isma qaadan karaan, waayo booliiska ma samayn karaan waxyaabo badan oo ay sameynayeen ciidanka nabad sugidda. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa kusoo kordhay muddooyinkii ugu dambeeyey dilal qorsheysan oo ay geysanayaan kooxo aan kala caddeyn cidda ay ka tirsan yihiin, inkastoo loo badinayo in Al-Shabaab ay ka tirsan yihiin. Waxaana si joogto ah loo dilaa dad rayid ah iyo weliba mas'uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya u shaqeeya. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in hal sabab ay ku qasbayso in uu xal u raadiyo guud ahaanba Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa daboolka ka qaaday in dowladdiisa ay ku qasban tahay in xal waara u raadiso dalalka dhaca qaaradda madow ee ay colaaduhu ka jiraan. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ka qayb galayay shir looga hadlayay amniga iyo xasiloonida ayaa sheegay in dowladdiisa ay ahmiyad gaar ah siinayso degnaanshiyaha dowladaha kale ee Afrika. Abiy Ahmed waxa uu sababta ku sheegay in nabad la'aanta ka jirta wadamada dariska la ah dalkiisa ay saameyn xooggan ku yeelan karto Ethiopia, waxaana uu carab dhaway in nabadda Ethiopia ay tahay mid ku xiran tan Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay inay doonayaan in Ethiopia ay hesho nabad iyo xasilooni, balse taasi ay ku imaan karto keliya iyaga oo marka hore nabadda iyo wada shaqayn ka dhex abuura dalalka ku hareeraysan Ethiopia si xasilooni guud loo gaaro. Nabadda Ethiopia ayuu sheegay inay tahay mid ku xiran nabad ka dhalata Soomaaliya iyo South Sudan oo uu caddeeyey inay saameyn ku yeelan karaan Ethiopia inteeda kale. Nabadda Ethiopia waxa ay ku xiran tahay Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan oo hela degnaansho, maxaa yeelay waxa aanu wadaagnaa soodin dalka dariska kula ah oo aan haysan nabad. Waxa ay meesha ka saaraysaa in adigana aad hesho nabadda. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay in dowladdiisa ay dhibka intaa leeg u martay sida ay Ethiopia ku heli lahayd nabad waarta, waxaana uu meesha ka saaray inay ka raali noqon doonaan carqalad loo geysto amniga wadamada dariska la ah. Waxa uu tusaale u soo qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada dalkiisa oo caqabad ku ah amniga, hase yeeshee waxa uu ku goodiyey in dadka noocaasi ah ay mutaysan doonaan ciqaab adag oo aan cafis lahayn. Dadka ka soo jeeda deegaanada Soomaalida iyo Oromada ayuu ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada isla markaana ka fogaadaan carqaladda ay ku hayaan amniga, isagoo hay'adaha ammaanka ku amray in sharciga ay horgeeyaan dadka dhibta ku haya dhinaca ammaanka. Sidoo kale nabadda Ethiopia ayuu sheegay in mas'uul ka yihiin dhammaan dadka ku nool dalka, maadaama nabad xumo ay wada saameynayso dalka oo dhan. Geesta kale Abiy Ahmed ayaa dhinacyada dhaliilsan siyaasadda ay ku shaqaynayso dowladdiisa ugu baaqay in dhankooda ay ka raacaan muwaadiniinta kale ee Etoobiyaanka ah. Madaafiic ayaa xalay lagu weeraray saldhig ay Al-Shabaab ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxaysaa madaafiic xalay lagu weeraray saldhig Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararka ka imaanaya deegaanka Basra ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay ku xoogan yihiin dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ayaa sheegaya in xalay halkaasi laga maqlay duqeyn xooggan oo aan la ogeyn waxa loo adeegsaday. Goobjoogayaal ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe oo saakay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa jug xooggan oo lagu weeraray saldhig Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Basra oo u dhexeeya labada Shabeelle, waxaana ay dadka qaar ku micneeyeen in duqeyntaasi ay geysteen diyaarado dagaal. Laakiin dhinaca kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in duqeynta xalay laga maqlay deegaankaasi loo adeegsaday qoriga PM-ka oo ay adeegsanayeen ciidamada howlgalka midowda Afrika ee AMISOM oo fariisin ku leh gobolka Shabeellaha Dhexe.
al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore weerar kala duwan ku qaaday saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee gobolka, gaar ahaan degmada balcad oo ay dhowaan la wareegeen deegaano hoostaga. Sidoo kale al-shabaab ayaa caqabad weyn waxa ay ku yihiin isu socodka dadka iyo gaadiidka wadada isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo jowhar, taasi oo culays badan oo amni laga dareemayay muddooyinkii ugu dambeeyey, iyagoona halkaasi horay uga fuliyey falal kala duwan oo weeraro ah kuwa oo lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle iyo dad shacab isugu jira. magaalada cadaadana wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan inay socdaan dadaallo la doonayo in mar kale dib loogu mideeyo mas-uuliyiinta maamulkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey aragti kala duwanaansho siyaasadeed ay soo kala dhex gashay. bishii tagtay ee Sebtembar ee sanadkan 2018 waxaa xoogeystay khilaafka u dhexeeyay madaxda dowlad goboleedka Galmudug oo u kala qaybsamay degmooyinka Dhuusamreeb iyo Cadaado oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud. khilaafka ayaa sababay in dhammaanba mas-uuliyiintii ugu sarreysay maamulka dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyo xilgudasho la'aan, islamarkaana waxa ay iska keeneen mooshinno iska soo horjeeda oo dhinacba dhinaca kale uu sheegay in xilkii laga qaaday. haddaba guddiga aqalka sare uu u xil saaray wax ka qabashada khilaafka soo kala dhex galay mas-uuliyiinta Galmudug ayaa sheegay inaysan aqoonsaneyn dhammaan xilka qaadistii hore u dhacday, loona baahan yahay in mar kale wadajir u shaqeeyaan mas-uuliyiinta Galmudug oo hadda kala fadhiya magaalooyinka Dhuusamreeb iyo Cadaado. guddiga ayaa intaasi ku daray inaan la aqbali karin inay sii socdaan waxa ay ugu yeereen dhaqdhaqaaqyada lagu burburinayo hoggaanka hay-adaha dastuuriga ah ee maamulka Galmudug. xubnaha guddigan waxa ay sidoo kale sheegeen inay garwadeen ka yihiin dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada isku khilaafsan siyaasadda maamulka Galmudug. madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guuldareystay qabashada kulan lagu xalin lahaa khilaafka soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa maamulka kadib markii uu arrinka ku gacan seeray madaxweyne xaaf. lama oga sida ay ku aqbali karaan xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ee fadhigoodu yahay Dhuusamreeb baaqa aqalka sare oo ah in wadajir loo wada shaqeeyo, iyaguna aysan garwaaqsan doonin tallaabooyinkii horay labada dhinac ee Cadaado iyo Dhuusamreeb xilalka ay isaga kala qaadeen. wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan waxa ay sheegayaan in khilaaf uu soo kala dhex galay guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo shaqaalaha maaliyadda gobolkaasi. waxaa durbaba soo ifbaxaya khilaaf dhinaca maaliyadda ah oo soo kala dhex galay guddoomiyaha dhowaan la magacaabay ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo maamulka maaliyadda Hirshabelle ee gobolka Hiiraan. qaar ka mid ah warbaahinta deegaanka oo arrintan u kurgashay ayaa waxa ay heleen xog ku aadan in shalay galankii dambe guddoomiyaha gobolka uu xabsiga u taxaabay dhammaanba shaqaalihii maaliyadda ee ku sugnaa degmada Beledweyne kadib markii ay isku maandhaafeen arrimo la xiriira dhaqaale sida la sheegay. uu guddoomiyuhu weydiistay maamulka maaliyadda oo dhinacooda ku gacan seeray dalabka guddoomiyaha, iyaga oo taa beddelkeeda sheegay inaysan bixin karin dhaqaale aysan ogeyn wasaaradda maaliyadda maamulka Hirshabelle. wasiirka maaliyadda Hirshabelle Maxamuud Cabdulle Maxamed Dheere oo arrintan wax laga weydiiyey ayaa waxa uu xaqiijiyey xariga shaqaalaha, laakiin waxa uu sheegay in saakayto la sii daayay shaqaalahaasi, waxaana uu arrin nasiib darro ah ku tilmaamay tallaabada uu qaaday guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan. waa arrin nasiib darro ah. shalay markii aan xilka ku wareejinay waxaan isku ogeyn inaan wax faragelin ah lagu samayn karin hanaanka maaliyadda gobolka, marka ma garan karno sabab keeni karta in shaqaale waajibkooda gudanaya xabsiga la dhigo, ayuu yiri wasiirka oo la hadlayay isaga oo jooga magaalada Jowhar. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka cusub ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo lagu eedeynayo inuu ka dambeeyay tallaabada lagu xiray shaqaalaha maaliyadda ee gobolka Hiiraan. maamulka maaliyadda gobolka Hiiraan ayaa ah halka ugu daran ee mar walba ay kasoo ifbaxdo khilaafka, iyadoona guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan dhowaana la bedelay ay ahayd meelaha ugu badan ee dhaliishiisu looga tirsanayay dhinaca maaliyadda oo wax isdabamarin laga dareemay, inkastoo guddoomiyuhu arrintaasi iska fogeeyey. Sacuudi Carabiya waxa ay jartay gargaarkii ay siin jirtay dadka ku nool Qudus
kadib markii ay diideen qorshaha loogu wareejinayo maamulka Yuhuudda. Dowladda Sacuudiga ayaa cadaadis xooggan iyo dhibaato cusub ku beerisay caqabadaha ay wajahayaan dadka degan magaalada barakeysan ee Qudus ee ku hoos nool gumaysiga Yuhuudda kadib markii ay ka jartay taageeradii ay siin jirtay. Saraakiil ka tirsan maamulka magaalada Qudus ayaa wargeyska Al-Khaliij Online u sheegay in Sacuudiga uu dhaqaalihiisa u adeegsanayo inuu ku qasbo dadka degan magaalada in ay u hoggaansamaan siyaasadda cusub ee madaxweyne Donald Trump ee gadaal ay ka riixayaan Yuhuudda. Labadii bil ee ugu dambeysay magaalada barakeysan ayaa la kulantay hoos u dhac xooggan oo ah xagga gargaarka bini'aadanimo, waxbarashada iyo mashaariicdii ay Sacuudiga maalgelin jireen ee lasoo marsiin jiray Bangiga Horumarinta Islaamka ee fadhigiisu yahay magaalada Jidda. Tani waa ciqaab dadka Qudus ay kala kulmayaan Riyaad kadib markii ay diideen inay aqbalaan heshiiska madaxweyne Trump ee loogu magac daray heshiiska qarniga ee dhigaya in Qudus ay noqoto magaalo Yuhuudda ay leeyihiin, ayuu yiri sarkaalkaasi Al-Khaliij Online u warmay. Sarkaalka ayaa sheegay in taageerada Sacuudiga oo ahaan jirtay $60 milyan bishii laga soo reebay keliya 7 milyan. Waxa uu intaasi ku daray in markii ay dowladda Sacuudiga weydiiyeen sababta looga jaray dhaqaalaha, loo sheegay inay la xiriirto dhibaatooyin dhaqaale oo Sacuudiga soo wajahay, balse ay og yihiin in xaqiiqda ay tahay in arrintan ay la xiriirto mid siyaasadeed. Khaliij Al-Khatab oo ah madaxa dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee Qudus ayaa sheegay in Sacuudiga ay ka shaqeynayaan danta Mareykanka iyo Yuhuudda aysanna yaab lahayn tallaabada ay qaadeen. Markana daawadayaal aynu eegno su'aasheena maanta. Inta aan su'aasheena maanta eegin bal aan dib u eegno su'aashii shalay aan idiin soo gudbinay iyo daawadayaasha fikradooda saliimka ah ka dhiibtay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معقول إلى ما أهن بشا إلهي أيا أبوطي إلهي أيا دولكان أبو كونكان دنيدان إركي دولك بإله أبوري مريكان وح أو سمين كرو أما أو سمين كرا إلى ما أهن أبو ديسي هدي أو معنا أو دادك كلا أو قلقل جلنايو أسيقنا وحا كوين أبود الله فيا كوين وعبد العزيز محمد وقصة هضلايو بغرتويد السعودي عربية أركاني فكر كي وحاواي وسليم كأه ما أبودو إن أو قرحيو ضيحا ما أبودي دونو كمانان كسنة أو صو سعودة أما بغلال كسنة أو صو سعودة تاس وإسك هذا الأعمال لو دينو أو لسكيري واي markaani kolay aragtidayda waxay ila tahay wax kama qaban karo, mana qarxin karo, mana aboodo. kolay ani saas ila tahay dadka oo isdhahay macnaha khalqal gali oo ii sheegay khalqal gali ruushka iyo waxyaabaha la mid ah Shiinaha iyo in uu ku khalqal galiyo macnaha ani awoodayda militarigayga waxa waaye bishii inaan qarxiyaan gaaray iyo waxyaabo macnaha oo waxaas la mid ah oo ku absi geliye maana wax uu awoodi kara ama awood uu u heli karo ina ma ahaan aniga kulli fikirkayga saliimka markaas ma fahanteen ya marka insha Allah kulli fikradayda intaas weeye waa ka soo marka insha Allah khayr badan ay rajeeyo. Assalaamu alaykum. ogeysiis muhiim ah dhammaan daawadayaasheena sida tooska ah ugu xiran shacabka media waxaan ogeysiinaynaa in wararkii iyo barnaamijyadii ay horay kala socon jireen Suldaanka TV aan u soo wareejinay shacabka media. haddaba si aad uga mid noqoto kumanaanka saaxiib ee haatan ugula soo biiray shacabka media, fadlan subscribe noo saar oo la wadaag asxaabtaada akhbaaraadka kala duwan ee aan kuu soo gudbino. waxaan si toos ah ugu tiirsanahay waa taageeradaada, waxaana kaaga mahadcelinaynaa sida had iyo jeerba aad ugu xiran tahay wararka iyo barnaamijyada aan ku soo gudbino. markana su'aasheena maanta waxa ay ku saabsan tahay dowladda Sacuudiga. waxaa lagu waramayaa in dhaqaalihii ay siin jirtay shacabka reer Falastiin ee Qudus ku nool inay gabi ahaanba jaratay, iyadoona shacabka reer Falastiin ay sheegayaan in tallaabadan ay ka dambeyso in Sacuudiga uu doonayo inuu ku cadaadiyo shacabka reer Falastiin in Qudus loo aqoonsado magaalo ay maamulaan maamulka Israa'iil. haddaba tallaabadan uu qaaday dalka Sacuudi Carabiya maxay ka dhigan tahay, sideese u aragtaa daawade ayaan maanta
maanta su'aasheena ku salaynayna si aad uga qayb qaadato su'aasha tooska ah waxaad nagala soo hadli kartaa dhanka WhatsApp-ka adigoona fikirkaaga saliimka ah halkaasi nagala soo xiriiri kara nambarada shaashada kaaga muuqda guud ahaanba waa naga intaa warkii caalamka oo aad kala socoteen shacabka media xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi waxaa warka idin sheegayay anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji tan intaynu ku kulmi doono warkan kan xiga nabad